kooxda ka dhisan horyaalka wadanka Talyaaniga ee Juventus ayaa waxay diyaar la tahay inay xoojiso dalabkeeda ku aadanaa ciyaaraanka ka tirsan kooxda Manchester United ee Paul Pogba waxaana madaxda sare ee kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus ay diyaar u yihiin in arintani ay xoojiyaan maadaama qorshaha ugu ballaaran ee kooxda kubadda cagta Juventus ay leedahay oo kaliya waxa ay tahay wiilka u dhashay wadankaasi Faransiiska in Pogba mar kale ay Turin ay dib ugu soo celiyaan maadaama kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay si gaar ah ugu baahan tahay qaar ka mid ah xidigaha ka tirsan kooxda Juventus sida laacibka reer Brazil Douglas Costa iyo ciyaaraanka Sandro labadaas ciyaartooyba waxa si weyn markaa u xiiseynaysa kooxda kubadda cagta Manchester United xilli dhawaan oo laacibka Sandro oo markaa uu heshiis u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus haddana wali waxa uu qayb ka yahay Alex Sandro dalabka ku aadan kooxda kubadda cagta ee Manchester United Juventus waxay doonaysaa inay mariso qorshaha ay maamulka Manchester United ay damacsan yihiin maadaama xooga ugu badan ee Juventus ay leedahay waxa uu yahay in Pogba ay dib ugu soo celiso horyaalka wadankaasi Talyaaniga ciyaaraanka ayaa markii hore waxa la sheegay in heshiiskiisa lagu burburin karo ku dhawaad 200 milyan laakiin waqtiga kan xaadirka ayaa markaa la sheegay in laacibkaasi Pogba lagu qiimeynayo adduun dhan inta u dhaxaysa 70 ilaa 80 milyan oo lacagta Euroga waxa sidoo kale kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ay diyaar u tahay inay la soo wareegto ciyaaraanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Isco haddii suurtagal u noqoto qorshooda ku aadan Paul Pogba waxay u dhaqaaqi doonaan xidiga marka uu ka mid yahay Isco ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid Andre Rabiot oo asna markaa qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Paris Saint-Germain Aaron Ramsey oo asna Arsenal markaa ka tirsan dhammaan ciyaartooydaasi ay maamulka kooxda kubadda cagta ee Juventus diyaar la yihiin in ay la soo wareegaan marka duu furman suuq iibsiga ciyaartooyda muhiimadda gaarna waxay tahay dhammaan ciyaartooydaasi waa kuwa ka ciyaara qaybta qadka dhexe toobaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur macallin Pochettino waxa uu leeyahay kama hadli karo in Christian Eriksen uu saga dhaqaaqayo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur maxay laacibkan waxa dhawaan aad loola xiriirinayay kooxda Real Madrid ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Isbaanishka heshiiska Christian Eriksen oo kooxda Tottenham kula jooga ayaa kaga harsan oo kaliya 18 bilood waxna warbaahinada qaarkood ba ay sheegeen ciyaaraanka ay macquul tahay in sanadka cusub uu ka faaruqo laakiin macallin Pochettino waxa uu leeyahay ma sheegi karo in ciyaaraanka uu ka dhaqaaqayo bisha January kooxda Tottenham iyo hadii marka uu ka dhaqaaqayo bisha June ee food inagu saysa waana qorshaha ugu weyn maadaama laacibkan xilligan loo gacnaatinayo magaalada Madrid macallin Pochettino waxa uu leeyahay Christian Eriksen waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxaana taageerayaasha qaarkood ba ay xusayaan inay aad u jeceliyeen ciiraankani in uusan ka dhaqaaqin kooxda maxaa yeelay waxa laacibkani Christian Eriksen sidoo kale aad u xiiseynaysa Manchester United macallin Pochettino waxa sidoo kale uu leeyahay anigu kalsooni weyn ayaan ku qabaa waxaana kula talinayaa Christian Eriksen inuusan ku degdegin ka dhaqaaqista kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur inta uu ka dhamaanayo heshiiskiisa maxaa yeelay waxa sidoo kale uu Pochettino doonaya in laacibkani waayiisi sportiga uu ku wanaagsan yahay in uu ku dhameysto kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur mid ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Shiinaha ayaa waxa ay si gaar u xiiseynayaan inay la wareegaan ciyaaraanka Wolverhampton ee ka dhisan kooxda kubadda cagta Crystal Palace waxaanu ka mid yahay waryahanada ugu muhiimsan ee kooxdaasi haddaba kooxda ka dhisan horyaalka wadankaasi China Dylan Yevang ayaana markaa aad u xiiseynaysa in ciyaaraankaasi ay kula wareegto adduun lacageed gaaraya 44 milyan oo lacagta banka xidigan Wolverhampton ayaana markaa loo balan qaadaya haddii horyaalka wadanka China uu markaa u dhaqaaqo in sanadkii uu qaadan doono adduun lacageed gaaraya 11 milyan oo lacagta banka bisha soo socota ayana kooxdan ka dhisan horyaalka wadankaasi Shiinaha ee Yevang ay markaa xiiseynaysa in ciyaaraankaasi ba ay la wareegto heshiiska kooxda Crystal Palace uu kula joogo xidigani kaga eg sanadka 2023 waxaana sidoo kale laacibkani uu dalabya ka haysta qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska qaar ka mid ah xidigaha kooxda Barcelona ayaa waxay wadaan olole ku aadan qaabkii Neymar uu dib ugu soo laaban lahaa Stadia Camp Nou ee kooxda Barcelona toddobaadka ka dambeeya ciyaartooyda ayaa waxa ay xusayaan in maamulka kooxda kubadda cagta Barcelona ay il gaar ay ku hayaan dhawaaqa ku aadan wiilka reer Brazil ee Neymar uu doonayo inuu soo macsalaameeyo magaalada Paris ee wadankaasi Faransiiska 26 jirkan ayaana markaa la sheegay inuu ka dhaqaaqi doono kooxdiisa PSG sida markaa laga soo xaqiijiyay madaxweynaha kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi oo markaa xusay in Neymar uu ka dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta PSG xidigan ayaa sanadkii 2017 ku biiray kooxda Paris Saint-Germain adduun lacageed gaaraya 220 milyan oo lacagta Euroga
warbixinada qaar ayaana markaa shaacinaya in wiilka reer Brazil ee Neymar uu ka dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta PSG adduunyadeed gaaraya 160 milyan oo lacagta Euro-ga oo dollarhana markaa u dhiganta 182 milyan. qorshaha ugu weyn ayaa ah Neymar baqdinta uu ka qabo madaxda kooxda kubadda cagta ee Barcelona inay ka jawaab celin waayaan dalabkiisa ama hamigiisa ku aadanaa inuu dib ugu laabto kooxda kubadda cagta Barcelona. madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa labadii toddobaad ugu dambeysay waxa uu shaaca ka qaday inay macquul tahay Neymar uu dib ugu soo laaban karo, laakiin waxa la sheegay in xiriir hoosaad ah markaa ay la sameysay kooxda kubadda cagta Real Madrid. xildigani arintaasi waa uu difaray Neymar, waxaana uu sheegay in haddii uu La Liga dib ugu soo laabanayo inuu ku biiri doono kooxdiisa hore ee Barcelona. madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Florentino Perez waxa uu sheegay in Neymar uu lacag walba ay maamulka kooxda kubadda cagta PSG ay soo bandhigtaan ama sheegtaanba loo gacan gelin doono si ciidaankaasi loo geeyo magaalada Madrid. xidiga reer Brazil ayaa sidoo kale waxaa la xiriirinaya qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska sida Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester City. kooxda ka dhisan horyaalka waddankaasi Faransiiska ee Monaco waxa ay diyaarinaysaa olole ku aadan qaabkii loo soo wareegi lahaayeen ciidaanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Tottenham ee Moussa Dembele oo diyaar u ah inuu macsalaameeyo kooxdiisa maadaama laacibkani uu ka mid ah ciyaartooyda ka faaruqi doonto kooxda kubadda cagta ee Tottenham sanadka cusub. xidigani ayaana markaa la sheegay in waqtiga kan xaadirka ah ay macquul tahay in uu isaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, maxaa yeelay waxa ciiraankani la leeyahay waa macquul inuu bisha January uu ka dhaqaaqo ama in bisha June ee foodan ugu saysa uu ka faaruqo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo heshiiskiisa markaa uu ku egyahay. jirada Litton Sport ayaa markaa shaacinaysa madaxa kooxda kubadda cagta ee AS Monaco ayaana markaa diyaarinaya sida ugu dhaqsiyaha badan in Moussa Dembele la geeyo horyaalka ligooka waddankaasi Faransiiska. 31 jirkani ayaana markaa sheegay inuu aad ugu dhibaatoonayo kursiga kaadka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. xidigani Moussa Dembele ayaa ka dhaawacan kooxdaasi tan iyo bisha Febraayo ee foodan ugu saysa sanadka cusub, ayaana markaa ciidaankaasi uusan noqon doonin mid ka soo dhex muuqda kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. wararka qaar ayaa sheegaya in ciidaankani uu diyaar u yahay inuu sanadka cusub ka dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. goolahayaa u dhashay waddankaasi Costa Rica Keylor Navas ayaa xilligani waxa uu shaacinayaa in uusan ka dhaqaaqi doonin kooxda kubadda cagta Real Madrid maadaama dhowaan dalaba ka soo gaaray kooxda kubadda cagta Arsenal ee ka dhisan horyaalka Ingiriiska oo soo bandhigtay adduunyadeed gaaraya 12.6 milyan oo lacagta banka. Keylor Navas waxa uu leeyahay ilaa iyo hadda go'aan maanan ka gaarin inaan ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Real Madrid, wali waxaan ahay ciyaaryahan aad ugu faraxsan. 32 jirkani ka tirsan kooxda Real Madrid ayaa aad ula dhacsan qaab ciyaareedkiisa tababaraha kooxda Arsenal macallin Unai Emery oo doonaya in ciyaaryahankaasi fursad wacan uu ka siiyo istaadiga Emirates ee horyaalka Ingiriiska. tan iyo xilligii kooxda Real Madrid waxa dhigtay goolhaye Thibaut Courtois oo ah goolhaye hore kooxda Chelsea ayaa laacibkani Keylor Navas wuxuu noqday mid kursiga keedka markaa ku aruura. laakiin laacibku wuxuu isku qancinayaa in kooxda kubadda cagta Real Madrid oo ku sii sugnaan doono tan iyo waayihiisa ciyaareeda. tababaraha kooxda Arsenal macallin Unai Emery waxa uu kalsooni weyn ku qabaa in ciyaaryahankaasi Keylor Navas oo gigada Emirates uu ku imaan doono adduunyadeed gaaraya 12.6 milyan oo lacagta banka ah, waana ujeedka ugu weyn ee macallin Unai Emery uu leeyahay in arintaasi uu dhaqan geliyo bisha January ee foodan ugu haysa, waana qorshihiisa ugu weyn in sida uu dhaqsiya badan goolahayaasi la siiyo Janiska. laakiin laacibkani ayaa waqtiga kan xaadirka wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ahay inaan la sii joogo kooxda kubadda cagta Real Madrid, wali waan ku qanacsanahay magaalada Madrid ayaa laga soo xogtay xidigan u dhashay waddankaasi Costa Rica ee Keylor Navas. kooxda reer Talyaani ee Lazio ayaa sidoo kale waxa ay qorsheynayaan inay gacanta ku soo dhigaan ciidaanka ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Porto, waa laacib ka ciyaara qadka dhexe ee Brahima. ciidaankan ayaana ka soo faaruqi doona horyaalka waddankaasi Portugiiska. 28 jirkani ayaana sidoo kale waxa aad u xiiseynaya Everton iyo AC Milan. jirada Corriere dello Sport ayaana markaa shaacinaysa in maamulka sare kooxda kubadda cagta Lazio ay wadaan qorshaha ku aadan in laacibkaas u dhashay waddankaasi Algeria ee Brahimi uu markaa uu ku soo biiri doono istaadiga kooxda kubadda cagta ee Lazio. waana qorshaha ugu weyn maadaama laacibkaasi uu diyaar u yahay inuu ka soo dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Porto horyaalka waddankaasi Portugiiska inta aysan markaa gacanta ku soo dhigin labada kooxood ee Everton iyo AC Milan. shakhsiyan laacibkani ee u dhashay waddankaasi Algeria Brahimi ayaana markaa la xusay inuu si gaar ah u xiiseynaya u dhaqaaqista horyaalka waddankaasi Ingiriiska.
kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ayaa sidoo kale waxay aad u xiiseynaysaa mar kale inay dalab ka gudbiyaan 27 jirka u dhashay wadankaasi Greega Kostas Manolas laacibkan wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Roma laakiin Juventus waxay diyaar u tahay in ciyaaraankaasi ay xujiso maadaama xidigaas u dhashay wadankaasi Greega Kostas Manolas uu yahay ciyaaraan si weyn u yaqaan qaab ciyaareedka horyaalka wadankaasi Talyaaniga laacibkan Manolas ayaa sidoo kale waxa aad loola xiriirinaya qaar kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska waxayna u muuqan doontaa Juventus haddii ay xujiso dalabkaasi Manolas ku aadan inay markaa heli karaan sanadka cusub waxaana uu ka mid yahay 7 ciyaartooy ee kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ay doonayso in sanadka cusub markaa ay la soo wareegto madaxda kooxda kubadda cagta Roma ayaa dhawaan waxay sheegeen in ciyaaraankaasi si fudud uusan kaga dhaqaaqi doonin Stadio Olimpiga ayadoo ay jiraan dalabyo kale xidigaasi ee uu ka haysto kooxda kubadda cagta Monaco ee ka dhisan ligoonka wadankaasi Faransiiska laacibka kooxda kubadda cagta Arsenal Mesut Ozil ayaana markaa la sheegay in uu u dhow yahay inuu ku biiro mid kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Turkiga oo toddobaadkii ugu dambeeyay dalabyadii ugu waaweyn ka soo gaaray sheekada la yaab kalena waxay tahay dalabyadii ugu xoog badnaa wuxuu ka soo gaaraya waqtiga kan xaadirka horyaalada Shiinaha iyo Turkiga waxaana ay u muuqanaysaa in Ozil uu si gaar ah u xiisaanayo inuu ku biiro horyaalka wadankaasi Turkiga madaxda kooxda kubadda cagta Arsenal waxay wadaan in ay markaa helaan kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Turkiga iyo qiimaha ku doonayaan Ozil inay ku geeyaan horyaalkaasi laacibkan ayaana markaa lagu qiimeeyaa ku dhawaad 15 milyan waxayna u muuqan doonaan kooxaha reer Turkiga inay heli doonaan bisha January ee sanadka 2019 soddon jirkan u dhashay wadankaasi Germany Mesut Ozil ayaana isbuucii ugu dambeeyay waxa uu sheegay inuu ka dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta ee Arsenal taasi oo ay fursad ay u tahay kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Turkiga ciyaaraanka kooxda kubadda cagta ee Inter Milan Nainggolan ayaa diyaar u ah inuu kooxdiisa hore ee Roma uu dib ugu laaban doono maadaama laacibkan la sheegay haddii dalab ku aadan xidigaasi Nainggolan markaa soo gaaro sanadka cusub laga iibin doono Stadio kooxda kubadda cagta Inter Milan laacibkan oo waqtiga kan xaadirka ka ganaaxan kooxdiisa Nainggolan ayaa sheegay inuu sameeyna kaga dhaqaaqi doono horyaalka sarada wadankaasi Talyaaniga waxa uu leeyahay waxaan ku faraxsanahay inaan ka sii mid noqdo kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Talyaaniga waxaan doonayaa sida ugu dhaqsiya badan inaan dib ugu laabto kooxda Roma aan ku haysto taageerayaal iyo ciyaartooy aan aad markaa u jeclahay laga soo xigtay xidigan Nainggolan u dhashay wadankaasi Belgium oo ah laacib ka ciyaara qaybta qadka dhexe Inter Milan agaasimooda ayaana waxa uu dhawaan uu sheegay in Nainggolan markaa la iibin doono xitaa laacibkan waxa uu sheegay in uu xitaa uu hakiye dalab ka soo gaaray kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee ka dhisan Bundesliga wadankaasi Germany ciyaaraanka qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Manchester United Juan Manuel Mata waxa uu leeyahay aad ayuu u maasiyay macallin Jose Mourinho runtii waa macallin aan aad u jeclaystay hab maamulkiisa waxaa sidoo kale uu Juan Manuel Mata uu leeyahay kalsooni weyn ayaan ku qabaa waxtarkii iyo muddadii uu ku sugnaa Stadio Old Trafford waana macallin mar waliba aan rumaysanahay in aan xusi doono ayaa laga soo xigtay laacibkani ka tirsan kooxda Manchester United ee Juan Manuel Mata sidoo kale waxa uu sheegay in macallinkani ku meel gaarka waqtiga kan xaadirka Manchester United ee Solskjaer uu yahay macallin si weyn uu aaminsan yahay markii loo eego inuu isbedel xoogan ku sameyn doono inta ka harsan xil ciyaareedkani Manchesterna waxay kalsooni weyn ku qabtaa inay noqon doonto mid xil ciyaareedka dambe ay soo buuxiso booskeeda ka qayb qaadashada tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League dhinaca kale tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool macallin Jurgen Klopp ayaa kalsooni weyn ku qaba in Stadio Anfield uu imaan doono daayirka u dhashay wadankaasi Ingiriiska ee Sancho oo bari ugu dambeeyay si weyn u xiiseynayeen 7 kooxood ee kamid ah kooxaha ugu awoodda badan tartamada qaaraddaas Yurub Sancho waxa uu wacdaro xoogan ka sameeyaa kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee Bundesliga wadankaasi Germany waxaana laacibkani aad ula dhacsan qab ciyaareedkiisa macallin Jurgen Klopp oo diyaar u ah in ciyaaraankaasi uu geeyo Stadio Anfield maadaama sidoo kale laacibkan uu sheegay in uu ku qanacsan yahay waqtiga wacan uu la qaadanayo kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund xidigan ayaa sidoo kale waxa la sheegay in dhawaan kooxda kubadda cagta Liverpool ay ka afduuban karto kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska oo laacibkaasi Sancho aad ula dhacsan qaab ciyaareedkiisa AC Milan ayaa sidoo kale waxa la xusayaa in gabi ahaanba ay diyaar la tahay in milkiyadiisaba ay la wareegto Bakayoko waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa kadib markii ciiraankani uu la soo baxay ciyaaro cajiib leh si weyn ay ugu qanceen maamulka sare ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan Bakayoko ayaana markaa la sheegay in lagu qiimeynayo adduun dhan 38 milyan oo lacagta Euro-ga
madaxda kooxda kubadda cagta ee AC Milan waxay doonaysaa in ay milkiyadiisa marka ay la wareegaan waqtiga kan xaadirka Bakayoko ayaa si amaah kula jooga kooxda kubadda cagta Milan waxaana si weyn ula qabsaday qaab ciyaareedka kooxdiisa iyo dhammaanba koobka laga ciyaaro gudaha wadankaasi Talyaaniga waxaana maamulka sare kooxda AC Milan ay diyaarinayaan in gabi ahaanba ay la wareegaan Bakayoko maadaama uu yahay laacib si weyn ula qabsaday qaab ciyaareedka kooxda kubadda cagta AC Milan xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta Chelsea sida amaahda marka kula jooga Kovacic ayaa waxa uu si gaar ah u daneynayaa in uu sanad aad u fara badan ku sii sugnaaday gegada Stamford Bridge ee kooxdaasi waxaana uu laacibka marka uu sheegay in kalsooni weyn uu ku qabo waqtiga uu la qaadanayo kooxda Chelsea ee ka dhisan horyaalka Ingiriiska ma jecel inaan dib ugu laabto magaalada Madrid gaar ahaan kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaan aad ula dhacsanahay qaab ciyaareedka macallin Mauricio Sarri anigu waxaan sidoo kale doonayaa inaan sanad aad u fara badan aan ku sii sugnaado waxaan sidoo kale jeclahay in maamulka sare kooxda kubadda cagta Chelsea ay ka wada hadlaan arrimaha ku aadan Real Madrid si aan markaa gabi ahaanba aan kula sii sugnaado ama aan la joogo kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa laga soo xigtay xidigani Kovacic oo ka mid ah ciyaartooyda sida amaahda kooxda kubadda cagta Chelsea qadkeeda dhex marka u haya